السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelkayga Maya Beauty هدا ku cusub tahay channelkayga fadlan iga iloobin subscribe buttonka iyo subscribe gare subscribe igu dufo iyo like gare videogan iyo comment gareena videoyaasha aad doonaysiin inaan sameeyo amba lookska makeup look aad doonaysiin inaan sameeyo maanta soo arkaysiinba waxaan sameeyay full glam beat for Eid inshallah imika Ramadan baan ku jirnaa hoosta ayaan kusoo qori doonaa social media oo dhan xagaas ay la socon kartiin markaan xaan ka maqan yahay YouTube-ka inshallah daawasho wacan wayno weega dambe videoga dambe aan sameeyo assalaamu calaykum okay waxaan ku bilaabanaa markaa serumkeeni serumka aan maanta marsanayo waxa weeyaan Rose Deep Hydration Oil Infused Serum ayaan doonayaa inaan imika wajiga mariyo ruuxaya baashan yar oo baal yar oo aad u cajiiba especially like wajigaaga markuu qalil yahay ama haysta dry skin waa perfect qofka markuu before makeup-ka marsado inuu sidaa u yara tabgareeyo wajiga qofku already sii marsaday creamadiisii oo dhan bas wuxuu yar wajigaaga unbuu yar siinayaa hydration before makeup-ka maadaama makeup marsanayno I feel like qofku markuu makeup prep-ka sameynayo waad important inaad essence amba serum fiican inaad wajigaaga yar tabgaraysid aad buu u fiican yahay inaad haysid dry skin oily skin any skin type anigu waan kula talin lahaa qofku inuu yar tabgareeyo marka waxaan sameyn doonaa primerkeena ayaan marsanaynaa primerka aan maanta marsanayno waxa weeyaan Huda Beauty baan doonaynaa marsada maanta waxa weeyaan water jelly primer waa hydrating primer hydration badan waxa weeyaan matte baan marsanayaa waxaan marsanayaa matte foundation marka intaabaan wajiga wal marmarinayaa also waxaan marsanayaa eye creamka aan aad u jecelahay waxa weeyaan Fenty Skin eye cream eye creamka waxaan u marsadaa amba indhaha hoostiisa waxaan u mariyaa haddaan ka hadalno skincare amba haddaan ka hadalno makeup I think maanta waxaan ka hadli doonaa makeup-ka concealerka markuu qofka marsado concealerka markaan marsado concealerkaygu si qurux badan buu soo baxaa wuxuu siiyaa hydration badan ayuu indhaha hoostiisa siiyaa dad badan baa jirta markii concealerka marsadaan leeliin badan ayuu ku yeeshaan xaggaas waxa weeye because indhaha hoosta ayaa u baahan hydration marka alaabtan imika massage toolka ma hayo laakiin farta ring finger ba ingiriisku dahaan ayaan sidaa u marmarinay sida ugu massage garanay indhaha oo danada doonaysa ilaa kor baa qaadi kartaa waxaan isticmaalna waa Charlotte Tilbury Flawless Filter baa la dhahaa marka baasha yar waxa weeyaan glow I think videogii hore ayaan keena hadlay marinaynaa xaggaasaan marinaynaa cheekboneskeena foreheadkeena ayaan saa u marinaynaa ilaa xaggaas ayaan keenayaa okay chinkayga ayaan saa u marinayaa markaas brush baan sidaa u marmarinayaa brushka waxa weeye suu noo siiyo glow underneath the makeupka hoostiisa ayuu glowna siinayaa waxaan sameynaynaa anu waxaan jecel yahay concealerka inaan hoos mariyo foundationka laakiin hadda talna waan isticmaalnaa concealer laakiin concealerka aan maanta isticmaalaya waxa weeyaan Boldness Way Too Faced Boldness Way in Warm Sand marka saas uu eegyahay dul marinaynaa glowga waa caadi maaha qasab inaad daaftid saasaan u wada marinaynaa marka maanta extra baan sameynaynaa usually ma jecli concealerka inaan foreheadkayga mariyo laakiin maadaama maanta sameynayno full beat baan sameynaynaa waxay ka codsateen full glam beat marka insha allah maanta waan isku dayi doonaa inaan sameeyo full glam beat soo arkaysiinba I know I look crazy laakiin concealerkii oo dhan ayaan marsaday waan blend gareeyay si fiican baan u blend gareeyay because waa important inaad blend gareysid ood si fiican brushka ku blend gareysid anigu waxaan aad u jecelahay brusheska yaryar ood si fiican ilaa indhaha hoostiisa si fiican ugu blend gareyn kartaa anigu ma jecli inaan isticmaalo beauty blender laakiin haddaad aad u doonaysid beauty blenderka isticmaal laakiin aqoon beauty blender I feel like inuu damp inuu yar ahaado weyn because productka oo dhan buu hadda kale nuugayaa marka waxaan dul marinayaa foundationkayga imika
foundation kan isticmaalayno waa kan waxa weeye NARS soft matte complete foundation. wali soo weydiiyaa shadeka aan isticmaalo. shadeka waxa weeye Macao baan anu isticmaalaa. wuxuu iga caawiyaa baashan yar. awal waxaa dhici jirtay foundationka ayaa xijaabka igu daadan jiray. markaa doonaysa aad marsatid foundationka wuxuu ku daadan jiray xijaabkayga amba aniga dharkayga igu wada xumaan jiray. marka waxaan iska siibsaday baashan yar. aad buu fiican yahay. toos baad ugu spatula haddii haysid amba brushkaaga ayaad soo qaadanaysaa ood ku marsanaysaa. marka for this instance maanta spatula ma marsanayno, laakiin foundation brushkaygaan soo qaadanaya. waxaan isticmaalaya waxa weeye Morphe M39 brush ayaan sidaa lightly ku blend garanaya. saasaan ugu tataabsiinaya. then waa kan saasaan u marinaya. waan ku blend garanayaa xoodan ilaa iyo xagga intaa hoostiisa ma gaarsiinin, laakiin waxaan doonaynaa inuu concealerku xaggaa ku yara yaalo. okay, saad arkaysiinba foundationkii oo dhan si fiican ayaan u wala marinay wejiga oo dhan. marka waxaan doonayaa inaan concealerkii lightka ee kale inaan hoos indhaha yar marino in yar. marka concealerka aan isticmaalino waxa weeyaan Fenty Beauty number 350 ayaan isticmaalayaa. 350na waxa weeyaan shade yar oo light ah. marka anigu waan jecelahay concealerkaygu inuu light yar ahaado. marka chinkana waan yar marinaynaa, yaanu kala marinaynaa, and then blendingii baan sameynaynaa. okay, so waan blend gareeyay. indihiina waan mariyay concealer waayo eyeshadow waan isticmaalaynaa. before powderka waxaan ku xigsiinaynaa waa contourka aan maanta isticmaalaya waxa weeyaan Fenty Beauty Matte Stick in Espresso. marka waa kan. waxaan jecelahay gacanta xagga dambe inaan ku yaro kuleeliyo. ma jecli inaan productka toos aan u mariyo wejigayga. xaggaasaan jecelahay inaan markaa kasoo qaato aan brushkayga sidaas aan u dul mariyaa. and then in yar baan zoomd naga yara degayaa. soo arkaysiinba contourka lafta hoostiisa ayaan marinaynaa. okay, imika waxaan sameyn doonaa powderka ayaan dul marinayaa. powderka aan isticmaalay waxa weeyaan Fenty Beauty powder in banana. waxaa la dhahaa banana. marka waxa weeyaan shade aad u yara light ah. kaas aad baan u jecelahay anigu inaan indhahayga hoostiisa bright ka dhigo. marka shadeka kale Honey by Fenty Beauty iyaan afka hareerahaas oo dhan ilaa xaggaas ayaan marinaynaa. laakiin horta waxaan ku bilaabaynaa xagga colorka lightka ee banana ayaan xaggan hoosta marinaynaa. so brushka aan soo qaadanayo waxa weeyaan Morphe E48 brush ayaan soo qaadanayaa. kaas waan ku tuujinayaa soo arkaysiinba. waxaan sameyn doonaa marka powderkii kalarkayga amba skinkayga uu yara dow uu yara dow yahay ayaan isticmaalayaa. ina arkaysiin ma garanayo. iga yara daadanayaa. dhulku iga yara daacay marka in badan baa soo baxay. kii hore iga daatay marka balkan waan yar ilaalinayaa. so saas ayaan uga saarayaa excesska. saas ayaan u dul marmarinayaa. in yar baan ku yara joogaynaa. and then waxaan iska wada masaxayaa. and then waxaan sameyn doonaa wejigaan spray garanayaa. marka waan ugu sir noqon doonaa. okay, marka wejiga waxaan doonayaa inaan spray garayo maadaamaan aad ugu baahan yahay hydration. hydrationka aan isticmaalno Mario Badescu weeyaan. waa facial spray. waxaa ku jira aloe, herbs iyo rose water. in between makeupka waa so nice inaad isticmaashid. bronzerkan baan marsanayaa. waxa weeyaan Megastar baa la dhahaa.
bronzerka markaan marsado waxaan marsan doonaa blushka. aad baan blushka u jecel yahay, marka saasaan u marsanayaa. imikana waxaan marsanayaa waxa weeyaan blushkii baan marsanayaa. blushka aan maanta marsanayo waxa weeyaan casaan ayaan maanta marsanayaa. waxa weeyaan by Fenty Beauty. casaankan weeyaan waa cream blush baa la dhahaa. kaas blushkan markaan marsanayaa soo arkaysiinba waa casaan, laakiin kalarkeeni buu noo soo celin doonaa. so eyeshadowga aan maanta marsanayno waxa weeyaan Huda Beauty baan maanta marsanaynaa. Huda Beauty waxay la soo baxday 3 eyeshadow oo sidan u eg. anu labaan ka haystaa, kan iyo mid la yiraahdo Toffee. waxa la dhahaa Brown Obsession. marka kan waxa weeyaan paletka chocolate-ka. marka maanta waxaan isticmaalanaa paletka chocolate-ka ayaan maanta marsanaynaa for our Eid look. Brown Obsession waxa weeyaan 3, laakiin anu labaan ka iibsaday 3da. aad baan uga helay, waan isticmaalay, very beautiful. marka waxaan samayn doonaa kan imika shade-ka yar ayaan isticmaalayaa, buniga. and then ila daawada insha Allah. cut crease-kan ka bilaabanaa, xaggaasaan ka bilaabanaa, kalarka aan ku blend gareynaynaa. soo arkaysiinba indihii waan dhameeyey. waxaan samayn doonaa imika maskaradeeda. waxa weeyaan NARS Climax Extreme Mascara ayaan marsanayaa. also waxaan samayn doonaa lasheskayga ayaan soo xirin doonaa, eyebrowskaygaan samayn doonaa, adna waa naga soo noqon doonaa insha Allah. waa kaas indihii oo dhan baan sameeyey. eyeshadowgii, eyebrowskii waan wala dhameeyey. marka waxaa noo haray furuurihii. marka furuuraha waan line garanayaa. lip linerka aan isticmaalayna waxa weeyaan from MAC Cosmetics. waxaa la dhahaa Chestnut. wax kasta aan maanta marsadayna xagga hoosta description-ka ayaan kusoo qori doonaa linkyada oo dhan isagoo wata. soo arkaysiinba waan line garayay lipskaygii. waxaan maanta marsanaynaa waa gloss weeyaan NYX Cosmetic baa la dhahaa, waa lip gloss. lip glosskana waa in Madeline baan marsanayaa. ugu dambeyn last step waxaan sameynayaa wejiga oo dhan baan spray ku buufinayaa. oon u baahanahay wejigeena inaan marka u dambeysa saad gareeno suu hadhow toona wejiga u dhaqdhaqaaqin. sprayga aan marsanayno waxa weeyaan All Nighter by Urban Decay. saasuu eegyahay. soo arkaysiinba waan dhameeyey. highlighterkiina waan isticmaalay. waa very soft subtle highlighter. aad baan uga helaa markuu subtle highlighterku yahay ood in badan laga fahmayn amba la arkayn highlighterka, laakiin waa la arkaya haddana. I hope ina fahanteen waxaan ka wado. marka insha Allah waa kaas waan dhameeyey. hopefully waxna maan iloobin. haddaad ku cusub tahay channelkayga fadlan ii subscribe garee, ii like garee YouTube videogan ama videogan, ii like garee, asxaabta u dir insha Allah. wayno marka daba aan sameeyo video wiiga dambaan samayn doonaa bacda ciid insha Allah. ciid wanaagsan, Ramadaan mubaarak. ramadaankii wuu soo dhamaanayaa, subxaan Allah. saa hore buu noo dhaafay. markaan arkay commentayaal badan oo laga yiri noo samee glam beadka. marka glam beadkii waa kan waan ciidanaa maanta. waan ciidanaa oodoo maanta ciid maaha, laakiin waan ciidanaa. waa qurux makeup lagu talagalay ciida ayaan sameeyey maanta. I hope inaa ka hesheen. I hope inaa idinkuna sameyseen. haddaad sameyseen ii soo dira xagga Instagramka igu soo dira ama Facebooka igu soo dira. wayno wiiga dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.